بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما خميسة أو جمعة إيسو جليسو كوذا بيشا ماي سنة كالبكون لباتن يشن أو كوبيغن صدح ذا بيشا دول قعدة سنة كون أفر بقول لفرتن يلح تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله إيا برامج كي قبانها قضبضا برامج كعاواري ذي كوها إننا وحا كمدا وأمريكانك أو شاعيي suurtagalnimada in ruushka uu adeegsado hubka nuclear-ka haddii lagu qabsado jasiiradda Crimea oo ka xoogay Ukraine muxuu la jeedaa hadalkan Mareykanku ayaan eegi doonaa Pakistan waxay ku dhawaaqday in ciidankeedu ay galeen heegankii ugu sarreeyay iyadoo xirtay hawada magaalooyinka Karachi iyo Lahore xilli laga cabsi qabo in dagaal buuxa ay la gasho Hindiya Israa'iil waxaa ka taagan caro weyn kadib markii la sheegay in askari looga cararay kaligiis bartamaha Gaza haddaba sida wax u dhaceen askarigii xageebu ku dambeeya sheekad la yaab leh oo hadalhayn ka dhalisay gudaha Israa'iil ayaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay Gaza sidoo kale barnaamijka ayaan idinkugu haynaa wadahadaladii Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay ee nuclear-ka Iiraan la xiriiray oo dhici lahaa Sabtida ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dib u dhac uu ku yimid waxay tahay sababtu waan eegi doonaa warar ku saabsan colaadda Yaman ayaan sidoo kale eegi doonaa iyo waliba weerarada Mareykanka iyo Xuutiyiinta isku hayaan sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay arrin cajiib ah oo ka dhacday garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala waddanka Hindiya kadib markii ciyaar socotay ku dhawaad 32 daqiiqo shinni ay soo weerartay taageerayaashii iyo ciyaartoydii iyo waliba garsoorayaashii meesha waxa ka dhacday kala orod iyo kala carar sheeka xasaasi arrintaas ku saabsan waan eegi doonaa dhammaan qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay tiin hawada ku jirno ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa soo dhawaada markale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وأنا كما حسنتهين داوشة برنامجك waxaynu ka hormaraynaa xiisadda u dhaxaysa Pakistan iyo Hindiya iyadoo laga cabsi qabo dagaal gorodda inay isla galaan labadan wadan ee ku hubaysan hubka nuclear-ka isla markaasna sirdoonka Pakistan ay shaaciyeen saacad kasta Hindiya inay soo qaadi karto weerar ayaa saacadihii la soo dhaafay dowladda waddanka Pakistan waxay qaaday tillaabooyin kala duwan marka ugu horeysa dhammaanba ciidanka Pakistan ayaa waxa la geliyay heegankii ugu sarreeyay waxaana sidoo kale la xiray hawada magaalooyinka Karachi iyo Lahore haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amurahan iyo warbaahinta waxa ay ka qorayso dowladda waddanka Pakistan ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u xirtay qaybo ka mid ah hawada waddanka gaar ahaan magaalooyinka Karachi iyo Lahore iyadoo soo saartay ogeysiiska duulimaadka ee loo yaqaano NOTAM kaas oo dhaqan gelaya maanta oo kowda ama caawa oo kowda bisha May ay tahay ilaa iyo 31 bishan May 2025 kadib markii sare u kaceen walaacyada dhanka ammaanka ee gobolka hay'adda duulista rayidka dalka Pakistan ee magaceeda loo soo gaabiyo PCAA ayaa xayiradahan waxa ay ku sheegtay in lagu dabaqayo goobo gaar ah oo ka tirsan aagaga macluumaadka duulimaadyada ee Karachi iyo Lahore waxaana ay shaqayn doonaan maalin walba laga bilaabo 4 subaxnimo ilaa iyo 8 subaxnimo waqtiga maxalliga ah wararku waxay taasi ku darayaan in tilabadan lagu sifeeyay mid taxadar ah waxaana la rumaysan yahay inay sabab u tahay xiisadda ka dhalatay weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Pahalgam ee dalka Hindiya inkastoo la filayo in hawadu ay xirnaato saameyn waxa ay ku yeelatay duulimaadyada caalamiga haddana shirkadda duulimaadyada Pakistan ee loo yaqaano PIA ayaa horey u joojisay duulimaadka gudaha oo ay ka mid yihiin kuwii tegi jiray deegaanada Gilgit iyo Sakardu si loo waafajiyo isbeddelka hawada la xiray Hindiya ayaa si isdaba joog ah wax u qaadaysay tillaabooyin taasi oo la xiriirta weerarkii dhacay waxaana lagu soo waramayaa in dhammaanba diyaaradaha Pakistan laga mamnuucay hawada waddankaasi Hindiya ilaa iyo 23 bisha May tani waxay daba socotay tillaabooyin ay horey u qaaday Pakistan oo ay hawadeeda kaga xirtay dayuuradaha Hindiya taasi oo kicisay
xiisadda gobolka ka dhex xiisadda ka dhex alosan labadan dal ee gobolka ku yaal ee nuclearka ku hubaysan xaaladda waxaa lagu soo warramaya inay tahay mid aad u adag waa hagaag bal markana aynu eegno meel kaloo xiisada ay ka aloosan tahay waa dagaalka Ukraine Mareykanka ayaa caawa war soo saaray waxa uu ku sheegay suurtagalnimada Ruushka inuu adeegsado hubka nuclearka haddii qatar la geliyo haysashadiisa jasiiradda Crimea oo Ruushka uu ka qabsaday Ukraine sanadkii 2014 waxaana lagu soo warramayaa in haatan Mareykanku uu aaminsan yahay in arrintaasi looga hortagi karo wadahadal dhanka diblomaasiyadda warbixin amuurahani ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise sarkaal Mareykan ayaa laga soo xigtay in jasiiradda Crimea ay Moscow u aragto mid lagu difaaci karo dhammaan danaha suurtagalka ah ee siyaasadeed oo uu ku jiro hubka istiraatiijiga ee nuclearka arintani waxay la jaan qaadaysaa hanjabaadihii hore ee Ruushka ee ku aadanaa weerar kasta oo lagu qaado jasiiradda Crimea inay ka dhalan doonto jawaab xad dhaaf ah digniinahan waxay imaanayaan iyadoo ay sii tarayso walaacyada Washington ee ku saabsan jihada fog ee dagaalka Ukraine kaas oo isku bedelay dagaal aad u adag oo la mid ah daal iyo jab inkasta oo Ukraine ay weli ka go'an tahay inay xoreyso dhammaan dhulka Ruushka uu ka qabsaday oo ay ku jirto Crimea haddana siyaasiyiinta Mareykanku waxay aad u daneynayaan sidii looga hortagi lahaa in dagaalku u gudbo iska horimaad toos ah oo u dhaxeeya NATO iyo Ruushka Crimea waxa uu Ruushku la wareegay sanadkii 2014 kadib afti muran badan dhalisay wax yar kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee Ukraine ee taageersanaa Ruushka arintaasi waxay keentay cambaareen caalami ah iyo cunaqabateen ballaaran oo reer galbeedku ay saareen tan iyo markaas Ruushku waxa uu aad u ballaariyay joogitaankiisa military ee jasiiradda taasi oo ka dhigan saldhig istiraatiiji ah iyo xarunta ciidamada badda ee badda madow sanadihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta Ruushku waxa ay si cad u sheegayeen in Crimea ay tahay qad cas oo aan la dhaafi karin sanadkii 2015 Ruushku waxa uu sheegay inuu xaq u leeyahay inuu hubka nuclearka geeyo Crimea dhamaadkii 2024 Ruushku waxa uu cusboonaysiiyay siyaasaddiisa nuclearka isagoo hoos u dhigay xadka uu isticmaali karo hubkaasi gaar ahaan marka uu wajahayo waxa uu ugu yeeray halis jiritaan oo madax banaanidiisa iyo dhulkiisa ah xaaladan ayaa saldhig u ah walwalka Mareykanka ee ah in weerar military ee Ukraine ku qaado Crimea taasi oo sababi karta falcelin daran oo Ruushka ka timaada inkasta oo Washington ay sii wado taageerada military iyo mid dhaqaale ay siinaysa Kiev haddana saraakiisha Mareykanku waxay muujinayaan xaqiiqo sal leh sida uu yiri sarkaal Mareykan ah Mareykanku ma doonayo inuu maalgeliyo dagaal aan dhamaad lahayn oo aan lahayn yoolal cad taa beddelkeeda istiraatiijiyadda hadda ee Mareykanku waxay u muuqataa mid mudnaanta siinaysa xabad joojinaya in la gaaro xal siyaasadeed oo waqti dheer lagu heshiiyo mas'uuliyiintu waxay garwaaqsan yihiin haddii hadda xaaladdu ay halkaas ku ekaato inay keeni karto mustaqbalka dhow dagaal kale oo la iskugu laabto sidoo kale waxay ogyihiin in Crimea oo dib loogu qabsado si military ay noqon karto tallaabo qatarteedu ay weyn tahay gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo hanjabaadaha Ruushka ee la xiriira ka hortagga nuclearka maadaama uu dagaalku sii socdo isku dheelitirka u dhaxeeya taageeridda madax banaanida Ukraine iyo ka hortagidda fitnooyinka dagaalka caalamiga ah waxay noqotay mid xasaasi ah oo hagaag Yaxya aad buu mahadsan yahay markana bal aynu eegno wadahadaladii nuclearka ee Iran iyo Mareykanka oo war cusub oo ka soo baxay waxaa lagu soo warramayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cumaan Badr al-Busaydi oo caawa ka shanqariyay in wareegii afraad ee wadahadalada dhex maray lahaa Mareykanka iyo Iran lagu waday inay ka dhacaan caasimadda dalka Talyaaniga ee magaalada Rome sabtidan dib loo dhigay ilaa iyo waqti dambe al-Busaydi ayaa fariin ku qoray baraha bulshada waxa uu ku yiri waqtigan xaadirka waxaynu ka shaqaynaynaa dib u jadwaleynta kulanka Mareykanka iyo Iran ee la qorsheeyay sabtida 3 May sabab la xiriira arrimo farsamo waxa intaasi ku daray in taariikhda cusub dib laga soo shaacin doono marka labada dhinac ay si rasmi ah isugu raacaan ilaa hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay Washington iyo Tehran ayay dib u dhaca waxa uu heliyay dhaliil mas'uuliyadda Iran ay u jeediyeen siyaasadda Mareykanka ee dalkooda ka dhanka ah goorsi horeysay oo maanta shabakada wararka Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa ka soo xigatay 3 ilo wareed oo xog gaar ah in wareegii afraad ee wadahadalada Iran iyo Mareykanka ee Rome la filayay in ay dhacaan sabtida dib u dhac ku yimid sidoo kale kula la filayay maalinimada Jimcaha ee bari inuu dhex maro Iran Britain Faransiiska iyo Jarmalka
ayay u badan tahay in kulankaasina dib ugu dhaco arbacadii maraykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah hay-ado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin ganacsiga shidaalka iyo kiimikooyinka Iiraan iyadoo ay socoto diyaar garowga wareeg cusub oo wadahadalaha arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo labada dhinac wufuud ka socota 3 wareeg oo hore wadahadalo ay yeesheen iyadoo xiisadan hoos taas ay u dhigtay laakiin xiisadan ayaa waxay cirka isku shareertay kadib markii Donald Trump uu ballan qaaday inuu isticmaali doono xoog ciidan haddii Iiraan aysan ogolaan in la joojiyo barnaamijkeeda nuclearka isagoo sidoo kale sheegaya in Israa'iil ay door muhiim ah ka qaadan karto arrinkaasi docda kale madaxweynaha waddankaasi Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in Iiraan aysan dagaal ku degdegayn ama aysan rabin laakiin wuxuu yiri xoog ayaan isku difaaci doonaa haddii weerarna lagu soo qaado isagoo xusay in Iiraan aysan aqbali doonin wadahadalo lagu qasbayo ama lagu hanjabayo kuwaasi oo ka dhan ah Iiraan dowladaha reer galbeedka ayaa waxay ku baaqayaan in laga hortago Iiraan in ay sii kordhiso bacriminta uraniumka iyagoo ka cabsi qaba intaasi ay dhalin karto in Iiraan ay samaysato hubka nuclearka Tehran waxay ku doodaysaa in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay soo saaridda tamarta korontada iyo adeegyada rayidka isla markaasna xilligan aysan doonayn inay samaysato